maanta waxaa magaalada muqdisho ka furmay carwada buugaagta muqdisho oo sanadkii saddexaad si joogto ah loo qabanayo balse sanadkan dumarka ayaa aad wax u qoray oo waxaa laabantay tirada hablaha buugaagta soo bandhigay taasi oo xiise gooni u yeeshay arrimaha ay buugaagtu diiradda saarayaan wariyaha BBC-da Cali Nuur Salaad ayaa joogay bandhigaasi warbixintan ayuu muqdisho nooga soo diray waa kulan bulsho oo sanadkiiba mar muqdisho ay marti geliso kumanaan ka kala yimid geyiga Soomaalida iyo qurbaha ayaa halkan ku kulmay si ay uga qayb qaataan carwada buugaagta muqdisho ilaa 15 buug oo ay qoreen 11 dumar Soomaali ah ayaa halkan lagu soo bandhigay waa tiro aad u yar marka loo eego ragga wax qoray ee halkan buugaagta ku soo bandhigay balse muhiimadoodu waxa ay ka muuqanaysaa mawaadiicda ay wax ka qoreen oo intooda badan bulshada taabanaya qorayaasha sanadkan buugaagta soo bandhigaya waxaa ku jira dumarkii ugu badnaa ee wax qora muddadii 3 sano ahayd ee uu bandhigan socday Muna Diirshe waxa ay wax ka qortaa arrimaha haweenka ilaa 3 buug oo ay qortay ayaa halkan lagu soo bandhigay gabadhu waa hooyo waa walaal waa xaas waa wax walba waa yaani udub dhaxaadkii oo bulshada waa macallimad waa daadahayihii oo nolosha wax walba ayada hagaysa haddii ayada ay wax qorto waxa moodaa si sax ah oo toos ah inay u qaadanayso bulshada maadaama ay tahay macallinkii ummadda sheekooyinka ka qaybgalayaasha soo jiitay waxaa ka mid ah buugan oo soo koobaya sheeko ku saabsan guurka qabaa'ilka la haybsooco waxaa qortay gabar Soomaaliyeed oo muddo dheer qurbaha ku noolayd dhibaatada ku dhacday haweenkeena Soomaalida haddii gabar ay go'aansato inay guursato nin oo boon ah in gabadha ninka ay guursatay waxaa lagu fiirinayaa dadka boonta ee wixii ku dhacay markii wadankan dhibaato ay ku dhacday annagoo dhan ay nagu dhacday laakiin dadkii la dhihi jiray adal waay dadkii dhihi jiray boon waay dadkii masaakiinta ahaa naagihii dhib badanaa ku dhacay because adiga markaa jaranjarada hoosteeda aad joogtid oo jaranjaradii ay kor ka soo dunto dhibkii u weynaa dhan adigu kugu soo dhacaa tartiib soo qofkas korkaa ugu soo istaagaayo qabanqaabiyaashu halkan waxa ay aaminsan yihiin in kororka tirada dumarka Soomaalida ah ee wax qora uu kaalin muuqato ka qaatay in la helo buugaag tiro badan oo ka hadlaysa arrimaha bulshada artida banaanka aan ka keenay midalan 5 kamid oo qoraayo waliba miisaan culus la waa haween buugaag af Soomaali iyo af Ingiriis iyo af Carabi ku qoray saddex waa haween kulligood dhalinyarada Soomaaliya gudaheeda ama Muqdisho joogaan ama magaalo kale ha joogaan aan ka keenay waxaan islaahay boqolkiiba 40 hadaysan ka badnayn waa gabdho jaamacado dhigta kulligood buugaag wada qoray buugaagta agaasinka xayaatada iyo nolosha buugaag ku saabsan dhisidda farxadda iyo kalsoonida buugaag ku saabsan dhibaatooyinka ardaynimada laga maro yaani waxyaalo qurux badan ka sokow soo bandhigidda buugaagta dhaqanka iyo ka doodista mowduucyada bulshada quseeya carwadu waxa ay fursad u tahay ganacsatada oo wax soo saarkooda bulshada kula wadaaga Cali Nuur Salaad BBC muqdisho